wuxuu ka mid yahay dhaxalka magaalada ay leedahay. waa masaajidyada aadka qadiimiga u ah oo ay leedahay magaalada Dhuusamareeb waxaan loo yaqaanaa masaajidka Raqayda. hadda waxaan dhex soconaa xaafadihii ugu horeeyay ee magaalada. xaafadahan waa qadiimi sida u jeedin jajabka ka muuqdo waxaad dareemi kartaa guriyihii hore in wax lagu dhisi jiray dhagax iyo dhoobo. hadda laakiin laguma dhiso waxaa lagu dhisaa bulkeeti. xaafadahan waa xaafadihii ugu horeeyay magaalooyinka ee magaalada Dhuusamareeb iyo gaar ahaan xaafadan waa bari. assalaamu calaykum. maanta waxaan joognaa inteena badan dhawaanaha aan joognaa magaalada Dhuusamareeb. magaaladan cidaan garanayn oo gobolka Galgaduud sidoo kale waa saldhigga Galmudug. magaaladan asliyan waxay ka koobneed 4 xaafadood inkastoo hadda xaafadka lagu daray way 5 xaafadood tahay. marka 4 xaafadood asalka xaafadda koowaad waxay leedahay Horseed, waa bari, Dayax iyo Waxraade. si kale marka la yiraahdo waa bari markaan leenahay waa xaafad jirto dhinaca bari, Horseed dhinaca koonfureed jirta, Dayax sidoo kale dhinaca galbeed jirta iyo Waxraade oo ah dhinaca waqooyi. sidoo kale waxaa ku soo biiray xaafad la yiraahdo Hodan oo iyadana laga jaray Dayax. Dayax laba loo kala qaybshay waxaa la yiraahdaa Dayax iyo Horseed. marka waxaan rabaa 4 xaafadood si asalka inaan barnaamijyo oo mid walba goonideeda aan hadlayno inaan ka diyaarino. maanta xaafadda loo saaran diiradda waa xaafadda waa bari. sababtu wax kale weydiin waa xaafadda Hodan. marka wax badan rabnaa ka soo ogaano aniga idinka israacan haya. halkani waa masaajidka weyn ee Axmediyaha. wuxuu ku yaalaa xaafadda waa bari. waana masaajidadii qadiimiga ahaa ee magaalada leedahay. qof walba oo reer Dhuusamareeb amaba gobolka Galgaduud degan aad ayuu u yaqaanaa. sidoo kale waxaan tegaynaa masaajid kale oo lagu magacaabo Raqayda oo aan sidaa nooga fogeyn. hadda waxaan dhex soconaa xaafadihii ugu horeeyay ee magaalada. xaafadahan waa qadiimi sida u jeedin jajabka ka muuqdo waxaad dareemi kartaa guriyihii hore in wax lagu dhisi jiray dhagax iyo dhoobo. hadda laakiin laguma dhiso waxaa lagu dhisaa bulkeeti. xaafadahan waa xaafadihii ugu horeeyay magaalooyinka ee magaalada Dhuusamareeb iyo gaar ahaan xaafadan waa bari oo ay caan ku tahay. dhinac walba markaa ka eegtid waa qadiimi. dhinac walba waa qadiimi. inay tahay xaafadan xaafad qadiimi ah oo ay waqti badan jirtay. waa bari yaa la yiraahdaa waa xaafadihii hore ganacsiga. sidoo kale waa xaafadihii hore ama ilbaxnimada magaalada xaafadihii lagu tirin jiray ama xaafadihii ugu horeeyay ee magaalada Dhuusamareeb ee lahayd. hadda laakiin waa laga guuray. waxaad moodaa ilbaxnimadii meel kale in loo guuriyay oo isla xaafadda ka mid ah. laakiin dhismooyinkan waa dhismooyin hore oo qadiimi ah ugu yaraan 70 sano kor ay u dhaafayaan. jiingadahaas waa jiingado waxaa laga yaabaa markay ugu yar tahay inay jiraan 60 sano. marka wax ajaa'ib ah. hadda waxaan dhex soconaa xaafadda waa bari. okay hadda waxaan joognaa masaajidka Raqayda. masaajidkan waa masaajid aad caan uga ah gobolka Galgaduud sidoo kalena magaalada Dhuusamareeb waa masaajidyada qadiimiga ah oo ku yaalay. marka masaajidkan ma sha Allah hadda dib u dayactir aad u weyn lagu sameeyay. sida u jeediyay munaaradiisa masaajidka dhinacyadiisa maxaa la yiraahdaa rinjiga la mariyay wax walba waxa moodaa inay cusub yihiin. marka aad looga taxadir ma sha Allah. marka wuxuu ka mid yahay dhaxalka magaalada ay leedahay. waa masaajidyada aadka qadiimiga u ah oo ay leedahay magaalada Dhuusamareeb waxaan loo yaqaanaa masaajidka Raqayda. sababtan u duubay waxay tahay dhismahan waa dhismo qadiimi ah. marka waxa muhiim ah cid walba inay aragto. halkan dadka ku noolaan jiray laakiin hadda kuma noolo. marka dhismooyinkan waa dhismooyin museum ama madxaf u istaahilo inay noqdaan. waxaan hadda u socdaa iskuul la yiraahdo iskuul waa bari. iskuulkaas waa iskuulka hore qadiimiga dawladdii hore dhistay.
marka waxaan rabaa iskuulkaas inaan tago weli maanan soo arag inaan tago adinkana idin geliyo aan wax badan ka soo ogaano marka sidaas ma fogo wuu noo dhow yahay hadda markaan tagnaa is arkaynaa waa ka xunnahay waa nimid iskuulkii laakiin nasiib daro waxaa nimid iskuulka oo xiran yahay hadda saacaddu waa 11 saac bar galabnimo marka iskuulka oo xiran nimid bilitoorana waa khamiis marka ma shaqeynayo iskuulka laakiin anyway iskuulka waxaa jihada iskuulka waa bari kale dugsiga hoose dhexe iyo sare ee waa bari marka xaafadan iskuulka ay leedahay waaye sidoo kale iskuulka wuxuu kamid yahay iskuulada qadiimiga ee xaafadan leedahay gaar ahaan xaafada waa bari guud ahaan magaalada Dhuusamareeb marka iskuulkan aad u shaqeeya sida la sheegay ama aan ku dhagadhagay ama dadkan ka maqlay waxbarashadiisa si toos ah u socotaa oo iskuul shaqeeyo oo active ah ama aad u shaqeeyo marka maxay waxaa laga yaabaa intaan socdo inaad aragtiin ama la kulantiin aniga xoogaa meel dhirta ku badan tahay oo moodid in laga yara maqan yahay inaan maraayo kale waa sax waa qaabkaas oo kale meel waxaa maraa laga yara maqan yahay waana sidaas u badnayn laakiin sababta aan u doorto waxay tahay waa qadiimi waa magaaladii hore sababta aan u doorto waa sidaas hadda magaaladu waxay u gurtay dhinacaas iyo dhinacaas kale oo isla xaafadda gudaheeda laakiin meelahan hadda aad u jeedid oo xoogaa geedaha ku baxeen waa guriyii hore qadiimiga dadkii hore oo lahayna aanan joogin badankooda qaarna leedeen oo ay dhinteen qaarna dibadaha ay jiraan ama magaalooyin kale waddanka qaarkood ay ku nool yihiin laakiin hantidan iyo guryahan iyo waxaan jajaban aan u jeedin dadaa leh waa magaaladii hore waa meeshay ka soo aas-aasatay waa all waa bari ama xaafadii hore ee waa bari ee duqoobday marka taasaa u sababa marka inaad aragtiin xoogaa waxyaabaha jajabka shan waxaa loogu talagalay in xoolaha lagu careeyo qaabkay u dhisan tahay waa qaab budani ah dadka ayaga gacmahooda ku samaystay xaafadahan inta badan waxay ku dhiban yihiin markuu roobka doo kale waxaa waaye dhulka dhab waxaa wuxuu noqdaa bal biyaha galo marka dadku waxay ku qasbanaanayaan inay ka qaxaan ama meel kale u qaxaan dhulkii hore biyaha fariisanayo meel uu biyaha maray meel kastoo biyaha maray waxay u muuqdaa dadka inay darbi ka dhiseen ama dhagax ay ku shubeen marka oo ay maxay leedahay ay aad dib ugu noqonayso inuu qofkaas maxay leedahay in biyahaas ay maraan ama meeshii loogu talagalay biyahaas ay aadaan meeshii waxay noqonaysaa biyo fariisin dadkan aad ay ugu dhib badnaanaysa marka inay socdaan ama ay maxay leedahay biyahaas socdo ama meel kale ay tagto marka dhibkaasna ku jira xaafadda markii la yidhaahdo xaafadda waa bari meeshaan fiiriya guryahan qadiimi waaye sidaa u jeediin ama guryo hore waaye qaabkeen u samaysnaayeen meesha hadda shubka la geliyo waxa uu ahaa alwaax sidoo kale albaabka caadi waxaa loo isticmaali jiray maxaa la yidhahdaa ayadana sidoo kale alwaax laakiin dhulka intiisa kale waxa uu ahaa dhagax iyo dhoobo daaqadan ayadana waa tana qaabkaas u samaysan tahay gurigan muddo lama degin maaha 30 sano 40 sano lama degin sidaasoo tahay weli gurigu wuu haystaa wax ka dhiman ma leh inta badan waa guri darbigiisu dhammaystiran yahay sidii uu adag yahay waa wada dhagax isagoo dhan dhagax iyo dhoobo isaguna sidaasuu ku dhisan yahay